waxaynu maanta gelaynaa waxyaalihii ugu xasaasaysanaa baynu geli doonaa waxaanu laydin qaybiyey qodobo xeerka ka mid ah wax ka bedel lagu sameeyey sida uu sheegay Cabdilaahi Daahir hadalkan uu idin siin doonaa waxaanu jecel lahay qodob laga hadlay cidda ka hadli doontaa inay isagu sheekan karayso wax cusub aynu ka hadalno waxaanu jecel lahay dooda waqtigeedu inaanay badan oo qofku waqti dheer aanu hadlin nuxurkiisa uu la fahmayo inuu yiraahdo qodobkaas ay ila tahay in sida loo bedelo ama qodobka in sida laga dhigo marka hadalkan uu siin doonaa hadii Ilaahay ka dhigo gacanta la taagayaa waxaan u siin doonaa qof baan idin siin doonaa hadalkuna iyo nagu badan insha Allah Shucayb waxa doodoodu ku saabsantan qabaa in sidiisii hore loo daayo sababtuna waxa weeye sababtuna waxa weeye waxaynu u baahannahay marka la doonayo in la yareeyo golaha dhexe in lagu golaha dhexe waxa laga rabaa prescription ay bixiyaan iyo xisbiga markaan waxaan qabaa in loo dhimo oo qofku lagula xisaabtamo golaha-dhexnimadiisa wuxuu qabanayo oo sidaa uu dibaatana gobol waliba uu ku soo xuli karo hadhow lagu soo saari karo maxaa subscription bixiyey laakiin sidan aan qabaa maadaama in xusbi xaakamkii inay dadku qaarkood conflict inagu abuurmo markaa waxaan qabaa in sidiisa hore anigu lagu daayo qodobada kalena saas laag masha Allah ku filan الرحمن الرحيم شروينها وان سلامة يا كنتي قبضنا وبوجادنا هوشة سوق بتين لبق قضب أوفر سماهان عن شايل هينا وحكي هذا بدو حوالي قضب كستة حد اللواتنات كترستا وحكوت على بوجا أفراد حقيقة جودة حسبك وحمق عبستي سيد قادستي صالح قدوميها حسبك وحنا نصحنا هي قولها ده شوكسي انت سيدي دان قرع سنة هاي شيء انت قدم بيسا اورانا يسا سيدو كلا وحا حلق قادستي سيد سوشيدين تيسا سوشيدين كرا 1/3 قولها ده حسبك وحنا وقرانا يكالا بد ارنتا سو فرسماهان وحا يلمو قطاين انا قمانين وايو حلق قادستا يما عابستو ويعادة هاي waxay ka dhigan tahay tan oo kale hadii aan ilaahno xilalka madaxweynuhu magacaabo ee golaha wakiiladu ansixiyo golaha wakiilada xilka ka qaadi kara farsamahan golaha dhexe wuxuu xil ka qaadi karaa cidii uu dhexdiisa ka doorto sida gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka iyo xogayaha marka farsamahan taas way ila qaldan tahay qodobka labaad ee farsamahan isagana aan jecelahay inaan saxo waxa weeyaan guddiga fulinta waxa lagu sheegay halkan ama xeerkii hore ku qorayd inuu yeelanayo 12 xog haye qaab dhismeedkaas wuxuu eegayahay qaab dhismeedka xisbiyada mucaaradka ah inaga xogayaha difaaca iyo ka hawada iyo ka arrimaha dibadda iyo arrimahaas oo dhan waxa inoo haya golaha wasiirada waa xisbi xaakim sida awgeed waxaan ku soo koobi lahaa 12 ka xog haye 12 ka xog haye in laga soo reebo xogayaha arrimaha dhalinyarada xogayaha arrimaha haweenka xogayaha abaabulka iyo xogayaha dhaqaalaha afartaas kaliya lagu soo koobay xogayaasha assalaamu calaykum qodobka guddiga fulinta sida loo bedelay waxay ku qoran tahay xilalka guddiga fulinta 12 ka xogay meesha waa laga saaray xilalka kuma jiraan waxa loo bedelay xilalka waxa loo magacaabaya hadba sida duruuftu ay keento 12 ka xogay marka meesha kuma jiraan xilalku 12 ka xil meesha kuma jiraan waana filaya qoraalka dhinaca kale inay ku qoran tahay الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلامتين قدوميها يا قدين قبل قابضة وعن شعلها إن أن رأي أن حوشي صفر سميسن يسشرع يسنبه قضب كي هاترد حقي سنترال كوميتيغا أما قول هذا الحسبيغا وحكو قرن بقول صدق كنتم بينو كدقني وينو ككعني ترد هوري أهيد لبض بقول كي داراتك وحن أتكينيا
anoo si farsamaysan iyo si sharciyeysanba u eegaya in aynu tirada u dayno tiradii ay ahaan jirtay golaha dhexe ee xisbigu uu ku caanamaalay sanadadii horena tagay ku guulaystay anagoo u riisan garaynaya sida tan number 1 waxaan ognahay golaha dhexe ee xisbigu ee halkan aynu ku dooranaynaa inuu yahay golaha ugu muhiimsan ugu khayrka badan ugu sharafta badan for the next 5 years ee xisbiga talada gacanta haya ku hayn doona haddii Eebbe subxaanahu wa tacaala ka dhigo anoo eegaya oo u eegaya in siyaasadda guud ee xisbigu ay tahay in uu xisbigu noqdo muraayad la iska wada arko oo deegaamada dalka Somaliland oo dhan ay iska daawadaan sida aynu ku caanamaaleen hore u gudbino ka mid tahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad gudoomiye ku-xigeenka labaad gudoomiye ku-xigeenka saddexaad gudoomiye ku-xigeenka afraad intaaba farsamo ayaa loo sameeyay in la isku arko ay dadku isku arkaan sidoo kale ayay golaha dhexe ee xisbiguna uu la mid yahay in ay beelaha iyo deegaamada reer Somaliland ay iska daawadaan iska arkaan 2 waxa uu leeyahay faa'iido fara badan maadaama aynu doonayno xisbiga inaynu adkeyno maadaama aynu doonayno xisbiga inaynu tayeyno maadaama aynu doonayno xisbigu inuu noqdo xisbi hana qaada in ay dhaqaale soo kordhin karaan tirada badan dadka la'aana membershipku waa inuu ahaada san adkeynayo jecel inaynu ugu dhaqanno membershipka qofka aynu u doorana waa inuu noqdo qof income iyo xoolo soo gelin kara xisbiga joogta ah oo monthly oo bil ah taa waxaan qabaa in uga faa'iideysan karno tikale in uga faa'iideysan karaa iyadana waxa weeye iyadoo meesha madan taariikhdeena waxaan ku guuleysanay labadii arrimood labadii gole labadii 25 sano ee uu jiray imika xisbiganima golaha dhexe golaha wuxuu ahaa golo salbalaara oo balaaran kumaynu khasaarin ma fahmin reason aynu u yarayno ma fahmin reason aynu dib ugu gurano ma fahmin reason halka oo kale marka waxaan lahaa aynu gudoomiye adkeyno oo aynu tayeyno xisbiga laakiin tirada waxay ka mid tahay waxyaalaha aynu ku adkeynayno waxyaalaha aynu ku tayeynayno waxyaalaha aynu ku xoojinayno numberka faraha badan ee marka waxaan soo jeedinayaa in tiradii hore ee kalfad ee golihii hore uu ahaa sidoo loo kordhiyo qodobka kale isna ku daraya gudoomiye iyadana mudan inaan ka sheego waxa jirta waa ka dhantay xildhibaan baan filayaa waan salaamayaa madaxweynaha ku-xigeenka iyo madaxda qaranka dhammaan shirgudoonka iyo ergooyinka dhammaantood waan salaamayaa su-aashaydu magacaygu waa luul xasan mataan su-aashaydu waxay tahay waxaan weydiinayaa shirgudoonka xeerkani haba yaraatee dumarka uu daadifeeyey waayo darif ilaa darif waxaa tirahdeen golaha dhexe waxaa soo geliya 20 dumar ah lafdhabarta xisbiguna waa dumarka waxa weeye haddana lafdhabarta xisbiguna waa dumarka iyo dhallinyaradana 10 ayaa tidhaahdeen qurbo jooga 15 waxaan codsan lahayn intaas in laga kordhiyo midda kale hoggaanka sare dhammaan waa rag kuma jiraan wax dumarihi dee kuraasada idinkunbaa iska fuur yeelay xisbigana waanu idinla leenahay waxaan doonaynaa inay dumarku soo galaan ha la caddeeyo 25 fulinta ku qoran dumarku cod inta ay ku leeyihiin inta dumara xubnood ay ku leeyihiin in la caddeeyaa baan jecelahay su-aashayda aan u dambaysan weydiinaya shirgudoonka waxa weeyaan waxaa jiray xeerkan hortii doorashadii madaxweyne muuse biixi ku soo baxay garabyo badan ayaa ku soo biiray xisbiga kulmiye heshiisya lala galay garabyada waxay haayeen golaha dhexe in dad lagu dari doono fulinta in lagu dari doono ma ka qayb yihiin barnaamijkan mana ku jiraan garabyadii heshiisyadii ballanqaadyadii beriga la wada galay waa salaamaya inta aynaan codka gelin qodobka luul xasan mataan laba su'aalood oo ayna weydiisay oo ah dumarka jawaabteedu waxa weeye xeerkan cusub ee wax ka beddelka imika lagu sameeyaad haysaan waxaa ku qoran waxay leeyihiin 20% khasab ah oo aan laga qabanaynin gobolla ilaa ay ku soo daraan dumarka waxaan filayaa tirada golaha dhexe inay konton wax ka badan inay noqon doonaan baan filayaa marka waa ogaanaysaan gobolladu markay keenayaan tirada magacyada golaha dhexe
haddaan tiradii dumar ee la raaciyay aanay ku jirin inaan laga qabanaynin markhaati ka aaday makaba idinku haddaanu ka qabanana kiiska nagu qaada taasi waa dumarka tan ururadii dadkii xisbiyada kale ka yimi ee xisbiga ku soo biiray wax ma loo qoondeeyey luuley haa golaa dhexese ma aha halkan way fadhiyaan iminka iyagoo kulmiye weynaa bay fadhiyaan rag iyo dumarba iyadoo wasiiraa bay fadhiyaan iyagoo xilal kale ka haya bay fadhiyaan iminka kulmiye weynay ka mid yihiin maaha dad gaar oo goonni wax loo siinayo taana jawaabteedu waa taa miyay su-aal kale jirtay halkan waxa fadhiyo kulmiye hay ma kala le ururo ma kala le xisbiye ma kala le waa isku wasiiro waa isku agaasimayaal si walba baynu ugu wada jirnaa isku mid baynu nahay isku xuquuq baynu leenahay codkii baynu qaadi doonaa hala diyaargaroobo tirada gobollada ka imanaysay marka hore ee aynu codka gelinaynaa waa 241 tirada gobollada ka imanaysay aynu codka gelinaynaa waa 200 markii hore waa 240 iminkana waa 153 soo jeedintani marka waxaynu kala codaynaynaa ma sidii hore ee 241 baynu u daynaa mise 153 kaynu ka dhignaa ayaynu kala codaynaynaa cidda qabta aynu u dayno siday iminka tahay oo ah 153 gacantaa taagto waa bal soo tiriya cidda qabta 153 soo jeedinta cusuba in loo daayo gacantaa taagto cidda qabta in 241 kii hore ee gobollada laga soo xuli jiray sidoodii loo daayo gacantaa taagto dhiga gacanta dhiga sidaasaynu ku qaadanaynaa waa unanimous weeye waayahay saynu procedureka u dhammaystirno yaa ka aamusay ma jirto waayahay tirada aynu haynaa waa 806 ergey baa fadhiya 17 ayaa diiday ayaa ogolaaday soo jeedinta dambe sidii hore waxaa u codeeyey inay ahaato 789 ergey waayahay waa saasaynu kaasi ku ansaxay waxaase jira qodobo kale oo xeerka ah oo sheegaya qof kasta oo golaha dhexe ahay inuu qadar qaadhaano oo bil walba laga rabo oo haddii uu bixin waayana uu xubinimada xisbiga waaye xubinimada golaha dhexe waaye ku talagala kaana iska kaalaya dambe xeerka si wacan baa laysu wada raacinaya waa 3 bilood sorry waa 3 bilood waa ku xisaabtamaysaan